waxaan leenahay taliyahaasi maxamed abiib hadduu wad ilaahay hadduu dhinto ciddaan u raacana waan garanaynaa waxaa tu kale oo nasiib darro ah runtii oonaan aqbali karin ah in xildhibaan cod shacab ku yimi la idhaahdo somalilan ma tiid cadowga somalilan baa tahay laakiin maanta waa nasiib darro in rool moodhalka yagii xagga hore noogu jiray yacni mataqaana iyadoo loo cagajuglaynayaan aragno dee waxaan qaranka ka sugnaaba ma taallo waxaan ahay dhallinyartii ka soo jeeday deegaanka ruqi ee ka tirsan degmada baki mawduuc ama barnaamijkaan u joognayna wuxuu yahay inaan ka jawaabno dhacdadii aadka u xumayd ee shalay ka dhacday magaalada hargeysa ee lagula dhaqmay xildhibaanka aynu doorannay lagula dhaqmay si ka baxsan bini'aantinimada waan cambaaraynaynaa waan ka soo horjeednaa waa arrinna aad iyo aad uga murugaysannahay kamaanaan filayn in taliyaha boolisku uu habkaa ku hadlayo uu dhaqankaasoo kale uu leeyahay aad baan uga xunnahay waxa weeyaan markaynu nahay ummad dad dimuqraadi sheeganaya oo jira in luuqaddii dhabtaynagula hadleen baan aaminsannahay waanu cambaaraynaynaa waan ka soo horjeednaa waxaanan leenahay maxamed abiib marka uu somalilan noqon waayo cidda kale ee somalilan garan waaye maxamed abiib somalilan ba ku dhex dhashay wuu ku dhex barbaaray wuu ku dhex dhalay lagu dhex doortay waana rool moodharka reer somalilan dhalinyarta somalilan buu yahay dalka kamuu bixin kamuu maqnayn anuu garan maayo cid somalilan maxamed abiib ka xigta ama ka jecel waanu garan laanahay waxaan leenahay taliyahaasi maxamed abiib hadduu wad ilaahay hadduu dhinto ciddaan u raacana waan garanaynaa waxaad aragtaan dhallinyartii ka soo jeeda deegaanka ruqi ee aqoon-yahanadii ee jaamacadaha dalka ku jirtay qaarkoodna ay qalinjabiyeen qaarkoodna ay hadda ku jiraan waxaan leenahay taliye kumaanaan moodayn inaad luuqaddaa ku hadlayso adigoo nooca u hadlayana inaad taliye haato waa laga qurux badan yahay adiga iyo madaxweynaha somalilan babaaq baan idin dirayaa arrinkaasi waxaan u aaminay in reer awdal loola jeedo inaad leedihiin reer awdal somalilan ma aha arrinkaa raalligelin ka bixiya waxaan leenahay waa maxamed abiib ma aha nin qolo ma aha nin gobol waa nin qaran oo la og yahay shalay dhacdii ka dhacday hargeysa markii maxaan ku idhahdayey maalintii dhaweyd ee dabku ka qarxay way ogaayeen wuu uga hadal badnaa wuu uga dhaqdhaqaaq badnaa wuu uga socod badnaa dadka shay kasta oo jamhuuriyadda somalilan ku soo kordhana waa ninka ugu horeeya ee ka dhaqaaqa ee ka hadla ee ka damqada waxaan leenahay hortii run ahaantii annaga arrinkaasi wuxuu noola muuqdaa in maxaan ku idhahdaa aan loo jeedin xildhibaan maxamed abiib oo keliya balse loola jeedo gobolkii awdal haddaanu nahay dhallinyartii gobolka awdal haddaanu nahay aqoon-yahanadii gobolka awdal haddaan nahay waxgaradkii gobolka awdal haddaan nahay dhammaan duqayti iyo dadkii gobolka awdal ka soo jeeda arrinkaa waan ka damqannay waxaanan maxaan ku idhahdayey taliyaha iyo madaxweynahaba waxaan ka codsanaynaa inay sida ugu dhaqsaha badan le arrinkaa uga soo jawaabaan ay uga soo hadlaan raaligelin ka bixiyaan dheriga waxaa karka ka keenaa waa kulaylkaa layidhi maanta waxa dhallinyarta aad wada arkaysaan iyo intii ilaa xalay ilaa shalay ilaa saaka ka falcelinaysay waxaa karka ka keenay ee miidiyaha soo fadhiisiyey waa inay ka falceliyaan yacni arrin damaqday quluubtayada iyo intii naga horraysayba arrintaas waxa weeye waa arrintii xildhibaan maxamed abiib lagula kacay shalay kulley sidaad wada og tihiin dee taliyaha midbaa malaha fahandarra yar haysaan isleeyahayo mataqaanaa isagu waxa weeyaan warqad buu ku joogaa magacaabis laakiin xildhibaan maxamed abiib shacab baa soo doortay cod buu ku soo baxay waxaan u sheegayaa taliyahana mid baan odhan xildhibaan maxamed abiibna mid baan odhan saxaafaddana mid baan odhan taliyaha waxaan leeyahay anigu xildhibaan maxamed abiib si aan maanta codkayga ugu garab joogsado oon u taageero ruqi baan uga imiday haddii ay sidaasi ku sii socotana dee hargeysaannu kuugu imanaynaa ta kale labaad waxaad ogaataa taliye anigu maxamed abiib kii ka yaraa baan ahay maxamed abiib kii ka yaraa baan ahay oo ruqi ku dhashay midda kale madaxweynahana waxaan leeyahay awrba awrka hore socodkiisa leeyahaa layidhi dadkii maanta boosishanka noo joogay ee matalayey ee yacni mataqaanaa dhallinyarnimo iyo xasaanad iyo xildhibaannimo boosishan dawladda ugu jira ama qaranka somalilan ku jiray dee waxaa mataqaanaa taana haysata ee nagaga warwar daranba waxay tahay war dadkii idinka horreeyeyba haddii sidaa loo caburinayo oo sidaasi loo qabanayo oo sidaasi loogu cagajuglaynayo idinku maxaa qaranood sugtaan baan noo taalla maanta dhallinyar ahaan aqoon maanta nagama dhinna rag qalinjabiyaalkan ku jira mataqaanaa rag jaamacadaha ku jira sidaasay tahay waxaan dugsanaynay wada hawanaynay dee calankaasuu ahaa oon maanta ku soo dhiiranaynay inaan mar unbal xukuumadda ka qayb qabanno oon doorkii dhallinyarnimo iyo doorkii aqoonnimo aan kaga qayb qaadanno ayaan doonaynay laakiin maanta waa nasiib darro in rool moodhalka yagii xagga hore noogu jiray
yacni mataqaana iyadoo loo cagajuglaynayaan aragno dee waxaan qaranka ka sugnaaba ma taallo runtii waxaa weeji arrin yaabkeeda leh murugadeeda leh yacnihii cidda somalilan noqonaysa isweydiin mudan halkuu dabagala leeyahay maxamed abiib maaha somalilan isaguna somalilan maahay ka dhigan tahay somalilan waa dad isku tegey wax isku darsaday qaran dhistay nabad ku heshiiyey horumar ku heshiiyey markay soomaali iswada qabsatay iswada tuuntay dabadeed gobolladii waqooyi ku heshiiyey nabadda iyo horumarka waa inagaa ku majiranayna 30 sano ka bacdi wax ku baranayna wax ku dooranayna si dimuqraadiya 5 madaxweyne isaga dambeeyeen waxaa nasiib darro runtii xukuumadda kulmiye inay caadaysatay cagajuglaynta caburinta shacbiga reer awdal gaar ahaan waxaan tusaale inagu soo qaadanayaa inoogu filan reer awdalow maanta reer awdal baan la hadlayaa xildhibaanka kaliya lama hadlin reer awdal oo dhan baa la hadlay waxa lagula hadlay tusaale aan idin soo qaadanayaa tii ugaaska ugu weyneed ugaasyada kale wasiirada loo diray waa la soo dhaweynay nasiib darro inagu wasiirka ugaaskeeni waxa lagala hortagayay xabad oo laga celinayay xadka magaalo uu xaq u lahaa oo caasimadiisii ahayd waxa tu kale oo nasiib darro runtii oo aan aqbali karin ah in xildhibaan cod shacab ku yimi la yiraahdo Somaliland ma tiid cadawga Somaliland baa tahay wuu ku hoos dhashay wuu ku hoos dhalay waxbuu ku bartay waa lagu doortay xildhibaan xasaanad lagu horiyaa yuu ku hoos yahay waxaan soo jeedinayaa waxa xukuumadda kulmiye dhowrka cisho u hadhan tahay way ku rafanaysaa bay la tahay war rafashadeedii inay jiraaligelin ka bixiso ummad dhanba qiimkoodii iyo sharaftoodii iyo karaamadoodii dhaawacday maxamed abiib saynu ognahay waxa laga soo doortay gobolka awdal waxa soo doortay dhalinyar hadduu cabdikariin axmed moogo reergiisa u taagan yahay codka dhalinyarada anagoo reer awdal waxa noo taagan maxamed abiib inuu ku soo baxay codka dhalinyarada marka waxaan aad u codsanaynaa in arrinkaa dhammaan laga bixiyo raaligelin buuxda waynu ognahay taliyuhu dee arrinkuu sameeyey maanaan mahadin gobol ahaan aadna waan uga soo horjeednaa waxaanan aad uga cambaaraynaynaa arrinkaasi inuu yahay arrin aad u cadaalad darraa oo lagula galay keliya xildhibaanka maahane lagu galay guud ahaan gobolka awdal waxaan ku hadlaynaa hadalkii shalay ka soo yeeray taliyaha ciidanka uu ku doorayay xildhibaan maxamed abiib ee uu ku yidhi ma tihid xildhibaan Somaliland waxa tahay cadowga Somaliland aad iyo aad baan uga damqanay arrinka dabagale waxaana wasiirina hadduu xildhibaan maxamed abiib noqon waayay xildhibaan Somaliland yaa Somaliland kala noqonaya mid kale waxaan u sheegayaa dabagale inuu soo ku yimid warqad madaxweyne laakiin xildhibaan maxamed abiib wuxuu soo baxay codka gobolka awdal haddii aan nahay dhalinyarada gobolka awdalna aad iyo aad baan uga xunahay arrinka ka soo yeeray xildhibaan dabagale